xilli la filayo in laga yagleelo maamul Jubbaland oo sharciyada haysta oo dowladda dhexe aqoonsi ka haysta ayaa si xawli ah looga dareemayaa gobolka Gedo. Shir isdaba joog ah oo maalmihii u dambeeyay ka soconayay magaalada Muqdisho ayaa ku soo dhamaaday isfahan buuxa. Gudoomiyaha gobolka Gedo Cabdullaahi Cabdi Jaamac Shimbir oo qayb ka ahaa shirarkii maalmihii u dambeeyay ka soconayay magaalada Muqdisho ayaa wax laga weydiiyay in shacabka reer Gedo dareenkooda waxa uu sheegay in dowladnimada halkaas looga baahan yahay khilaafka yar ee ka dhex jirana la xalin karo haddii arrinkaasi si toos ah loo wajaho. Iyadoo maanta la filayo inay gaaraan degmada Garbaare ee gobolka Gedo wufuud culus kuwaas oo hordhac u ah dhisidda maamul cusub, haddana la qorsheynayo qaabkii loo wajihi lahaa laguna yagleeli lahaa Jubbaland sharciyad haysata. Xilli madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Maxamuud Siid Aadan oo ku sugan gobolka Gedo oo qadka fogaan aragga kulan kula yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya kaas oo dacwad ka dhan ah dowladda federaalka u gudbiyay. Caliyare Kalson TV Balad Xawo. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socdo receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah.